السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتها شرفت لي كسر دوادا channelka وبري official haday tahay markii kuugu horeysay fadlan subscribe saar calaamada gambalka furo si muuqaal kasta kuu soo gaadho isla markaa aan soo dhigno. nin kristaan ahaa oo qiso la yaab leh oo uu arkay ku islaamay. wiil dhalinyaro ahaa oo kristaannimo ku soo barbaaray ka awow ilaa iyo ka awow masiixina ahaa ayaa diinta islaamka qaatay, waxaana qisada islaamnimadiisu ahayd mid mucjiso ah sida uu sheegay markii uu qaatay diinta islaamka kadib. wiilkan dhalinyarada ah oo hore loogu magacaabi jiray Castro Menzi ayna iska dhaleen aabba kristaan ah oo reer Urdun ah iyo hooyo Romaani ah, dhalashadiisuna tahay oo iyaduna masiixiyad ah, oo jiray 16 jir ayaa sida uu sheegay lagu soo barbaariyay dhaqan kulid ah diinta islaamka, markastana laga ilaalin jiray inuu u dhawaado. markii uu dugsiga galay ayuu bartay nashiidooyin islaami ah oo lagu dhigo dugsiyada dalka Urdun, kuwaas oo xitaa waalidkiisu ka ilaalin jiray inuu xafido amba guriga ku dhex akhriyo. waxaana sida uu sheegay waalidkiisu mar walba u diidi jireen in uu akhriyo nashiidooyinka islaamiga ah. sida uu ku waramayo waxa ay gaadheen xitaa ay waalidkiisu u gacan qaadaan marka uu guriga ku dhex akhrinay nashiidooyin. laakiin da'diisu markii ay gaadhay 15 jir ayuu habeen riyo ku arkay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, waxaanu sheegay in rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri isoo raac aan salaada ku baree. kadibna uu ku daba tukaday, waxaanu ku qarway riyadii dhexdeedii, wuxuuna toosay isagoo salaalsan shahaadateynka. waxaa markii qayladiisii maqleen ku soo cararay waalidkii oo soo gaadhay isagoo ashahaadanaya. waxaana taasi sababtay dagaal ka dhex dhacay isaga iyo labadiisa waalid, kuwaas oo ku qabsaday sheegayna in uu mar hore qaatay diinta islaamka oo uu aarsanayay. waxaana lagu xidhay guriga dhexdiisa oo waxay waalidkiisu uga dhaarteen in uu dibadda u baxo iyagoo ka cabsanaya in uu la kulmo kooxaha qawaafilnajaadka loogu yeedho oo diinta islaamka ka dhex fidiya kristaan Urdun. maalmo kadib ayuu ka baxsaday gurigoodii oo wuxuu tegay maxkamad ku taalla magaaladii ay degnaayeen oo uu xaalka uga warramay. qisadan oo dhammaystiran la soco barnaamijka xiga. daawade hadday tahay markii kugu horeysay ee aad kanaalkan daawato kusoo biir oo taabo calaamada subscribe-ka si muuqaal kasta isla marka aan soo dhigno isla waqtiga aan soo dhigno kuu soo galo. fadlan asxaabta sharafta leh waxaan ka codsanaa inay qisadan sii shargareeyaan, asxaabtooda kale ay u sii shargareeyaan, wixii fariimaha commentiga noogu reebaan. dhammaan asxaabta waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.